qaar ka tirsan haweenka qurbajooga Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Sheffield ee cariga Ingiriiska oo ay hormad u tahay labuurada caanka ee Saado Ciise Cismaan ayaa agab isugu jira farshaan iyo goyaal waxay ugu soo deeqeen cisbitaalka guud ee magaalada Ceergabo. deeqdan ayaa waxaa cisbitaalka soo gaarsiiyay muftiga magaalada Ceergabo Sheekh Maxamed Cali Bixi iyo Abwaan Muuse Dhooleyare oo kalmadaasi iyaga lagu soo hagaajiyay. munaasabadii guddoonsiinta deeqdan oo lagu qabtay barxadda cisbitaalka guud ee magaalada Ceergabo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag, madaxda iyo shaqaalaha cisbitaalka iyo marti sharafaad u tiro badan. Abwaan Muuse Maxamuud Jaamac Dhooleyare oo goorema munaasabadii guddoonsiintaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada deeqdan iyo cidda soo dhiibtay. waxaynu joognaa oo ku sugannahay isbitaalkii guud ee Ceergabo. waxaynu u joognaa inaannu deeq kaalmo ah oo gogol ah oo loo soo xil saaray ama lagu soo hagaajiyey muftiga weyn ee Sheekh Maxamed Cali Bixi iyo dabcan aniga oo Muuse Dhooleyare ku wareejino ciddii loogu talagalay oo ah beeshinka isbitaalka ama dadka bukaan jiifka loo yaqaano gogol loogu talagalay oo ka kooban furshaan iyo maxaan ku dhahdayay go'yaal tiradooduna ay dhan tahay 50 furaash iyo 50 koodii maxaan ku dhahdayay gal iyo 50 go' deeqdaas ama kaalmadaas gogosha ah ilaahay khayr ha siiyo waxa soo diray jaaliyadda reer Soomaaliland ee magaalada Sheffield ee cariga Ingiriiska taasoo ay qaban qaabiyeen ama ay hormuud ka ahaayeen gabdhaha kala ah Saado Ciise Cismaan Xaali Jaamac Kawle Kaltuun Jaamac Bidhe Kaltuun Baanday iyo Khatra Xasan. waxa xusuus mudan gabdhaha qaban qaabada iyo kaalmada geystay inay ka soo jeedaan gobolka Maroodijeex cidda ay gargaarayaana ay walaalahooda gobolka Sanaag yihiin inkastoo ay ku jiraan gabdho reer Sanaagihi sida Xaali Jaamac Kawle iyo Khatra Jaamac Bidhe haddana gabdhaha Saado Ciise Cismaan oo hormuud ka ah arintan iyo Khatra Kaltuun Baanday iyo sidoo kale Khatra Xasan gobolka Maroodijeex ayay ka soo jeedaan. Sheekh Maxamed Cali Bixi ayaa isaguna dhankiisa halkaasi duco iyo bogaadin uga soo jeediyay hablaha deeqdan cisbitaalka soo gaarsiiyay isagoo Allahna uga bariyay inuu ajar iyo xasanaad ugu bedelo hablihii deeqdaasi soo dhiibay. waxa iyaduna halkaasi ka hadashay maamulaha cisbitaalka magaalada Ceergabo Sahra Xaaji Xasan oo iyaduna dhinaceeda si weyn ugu mahad celisay hablaha kaalmada wax ku oolka soo gaarsiiyay cisbitaalka magaalada Ceergabo waxaana ugu baaqday inay ku daydaan qurbajoogta gobolku hablahan deeqda ku soo tamarucay oo ka soo jeeda bay tidhi gobolka Maroodijeex.